الحمد لله أكمل الحمد على كل حال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد. booliska waxaan u jeedinayaa iyo xukuumadda inteeda kaleba, ardadii waa fasaaday. xukuumaduna waxay anfaca ku leedahay fasaadka inay difaacdo. caradii waxaa dhacay meel kasta in khamradii iska faaftay. waxaa jirta in isbaara jirto. waxaa jira akhlaaqdii inay luntay oo ciyaalo suuqii ay kufaaris ku sabaheen, madax daliigtimale inay samaysteen. arrimaha caynkaas haddaan xukuumaddu wax ka qaban, shacabku asagu ma kala dheereeyo. waxaan leeyahay xukuumaddu waxa qabato, boolisku waxa qabto. hadday rabaan dadkayga ahludiinka hana kaalmaysteen, waxbaan la qabanaynaa. middaasi waa sidaas. midda kaleeto, soomaaliya khalal xarbadeed baa ka jira meel kastaba. fitantu waa badan tahay. dadku waxay yidhaahdaan waxaas in lala diriraa ma bannaana. qoom kalena waxay yidhahdaan waxaas in lala diriraa waa waajib. wixii aan ka ogahay intaasaan sheegayaa. culummadu waxay yidhaahdeen haddii kaafir qaalib noqdo oo muslimiinta uu ka qaalib noqdo, qabsado, waajib waxaa ku ah muslimiintu inay qumaan oo ay la xarbiyaan oo ay mid kale ogaan, mid qof muslim inay ogaan. muslimiinta saasaa waajib ku ah. haddii mubtadaca qabsado, waxaa waajiba bay yidhaahdeen mubtadacaas in loo qumo oo lala xarbiyo. faasiqu marka haddii fisqi ku soo dariyo, in laga gaabsado weeye xarbaddiisa. waxa uu hor taagan yahaa ka daran. haddii la sinmo oo fawda timaaddo, laa tasluxu nnaasu fawdaa laa saraata lahum walaa saraata idaa juhaalhum saadu. ida stawat alasaafilu waalacaali faqad daabat munaadamatu lmanaaya. dadku uma suubado fawdo inuu noqdo iska dad xarigaa furana oo aan madax lahayn oo sinan uma suubado. ilaa waxaa la og yahay dadka cuduushiisa iyo fusaaqdiisa muslimiinta inay fusaaqdu badan tahay. haddii fusaaqdaasi madax celinayso quwadle la waayo, ayagaa dadkii cuduushaha ka badan, ardada ayagaa fasaadinaya. marka suldaankan faasiqba ha ahaadee meesha haysta, hadduusan mubtadic ahayn in lagu duulaa ma bannaana. waxa uu ku aadan yahaa ka sii daran. mubtadacana waxay yidhaahdeen waa in lagu duulaa oo lala xarbiyaa oo qof kale la geeyaa meeshiisii. mubtadacaasi hadduu daa'ifo khaasa qabsado, daa'ifadaasi haddaysan la diriri karin, ha uga tagto meeshiisa, carada uu haysta ha uga tagto. maxaa jira mubtadicu iyo faasiqu waxay ku kala bedelan yihiin. mubtadicu diintii buu doorinayaa. dadkii wax diinta ka duwan oo ama siyaado uu ku daray ama nuqsaan uu ka ridayo ayuu dadka ku faafinayaa. laakiin faasiqu dantiisaa kaluu iska haystaa ee diin ma tadakhulayo. intaas ku kala duwan yihiin. intaas waa sidaas. qof waliba ha uga qiyaasto qofka waxa uu yahay markaas meesha haystaa ha uga qiyaasto.
bishii mawliid baa dhalatay. waxaa la rabaa in salliga la badiyo oo ilaahay la baryo inuu fitanta tan iyo meexanta tan ilaahay naga qaado. salliga nebigii macaarifta iyo khayraadka lagu gaaraa. shadaa'idana waa looga baxsadaa. marka salliga in la badiyo sidaasaa ku talinaya oo mawliidka meel arka laga akhriyo. qur'aankana ha la akhriyo. ilaahay ha la baryo. wax kale ma hayno, daaqa kale ma hayno. annagu dowlad maanta wax noo qabanaysa ma aragno, wax noo dadaalaya ma aragno. ilaahay baa noo dowlada, asaga aan barino. allahuma salli calaa sayidina muxammadin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama tasliiman kaiira.